السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين مركلة كسو دوادا برنامجيدي آنو سمين جرني اياد كداون جرتين درويش تي في ديبو هاوين بدن او آنو كساميني ayaan waxaan rabaa marka ugu horeysa in aan la wadaago bulshada Soomaalida ah ee dhageysata ama daawata Darwish TV in hadii ilaahay idmo Darwish TV uu dhawaan uu ka mid noqon doono telefishinada laga daawado wadanka Soomaaliya. haddaba inta aanan la gaarin xilligaas ayaan waxaan go'aansanay in barnaamijyadii aanu ka sii deyn jirnay barahayaga bulshada Facebook iyo YouTube kaba in aanu dib u soo celino hadii ilaahay idmo iyaga oo aanu casriyeenin barnaamijyada hadii ilaahay idmo gaar ahaan barnaamijka gaarka ah ee aniga aan sameyn jiray ayaanu hadda waxaan ugu magac darnay sooyaalka Darwish TV waxa uu noqon doonaa barnaamij aan uga hadalno arrimo kala duwan oo quseeya dhammaan wadanka Soomaaliya iyo caalamkaba waxaan sidaas oo kale ka hadli doonaa arrimaha wadankan Mareykanka gaar ahaan doorashooyinka hadda socda anagoo isku digi doona bulshada ku dhaqan wadankan Mareykanka Soomaalida in ay fahmaan ama la socdaan xaaladaha wararka iyo siyaasadda wadanka Mareykanka. haddaba barnaamijkan maanta oo ah barnaamij tijaabo ah sida aan idin sheegay Darwish TV waxa uu ka mid noqon doonaa telefishinada satellite-ka laga daawado studio-geyga ugu weyn waxaanu dhawaan ka furi doonaa magaalada Minneapolis ee gobolkan Minnesota sidaas oo kalena waxa xaruntiisii ay diyaar ku tahay oo dhawaan laga furayaa magaalada Nairobi iyo magaalada Muqdisho caasimadda wadanka Soomaaliya waxaanan isku digi doonaa hadii ilaahay ma dadaal dheer aan u gali doonaa in dhammaan gobolada Soomaaliya uu telefishinkaasi ku yeesho wariyaal ama xafiisyo wararka looga soo tabiyo waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadnaqo rag aan halkan magacyadood mid uga sheegi karin oo siyaabo fara badan uga shaqeeyay sidii uu Darwish TV uga mid noqon lahaa telefishinada wadanka Soomaaliya taasoo juhdi badan iyo dhaqaale badan ba ku bixiyay aad iyo aad baan rabaa inaan iraahdo waad mahadsantiin haddaba barnaamijkan tijaabada ah maanta ugu horeeyo ayaan waxaan rabnaa bal inaan uga hadalno arrimaha doorashada wadanka Soomaaliya ma jirto cid gaar ah oo aan barnaamijka hadda aan ku martiqaaday waa barnaamij tijaabo ah waxaan rabaa in bulshada Soomaaliyeed aan siiyo fursad sida aad ogtihiinba shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba waxa ay u ooman yihiin in ay helaan hogaamiyayaal daacad ah oo u adeega wadanka aqoonna u leh matalaada ama shaqada dawladda haddii ay tahay qaybta xukuumadda ama haday tahay kuwa sharci dejiyayaasha ama xubnaha baarlamaanka haddaba barnaamijkan ayaan waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed aan ku siiyo fursad ay iyagu markaasi fakarkooda oo uga dhiibanayaan bal yaa mudan in uu mujtamaca Soomaaliyeed u noqdo xildhibaan waa maxay muhiimiyadda ay u leedahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan doorashooyinka gaar ahaan marka la xulayo xildhibaanka matala degaan gaara sida aad ogtihiin maadaama aysan weli ka dhicin doorashadii cod iyo qof wadanka Soomaaliya waxa codka ridaya dooranaya madaxweynaha la rabo in uu ummaddu u hogaamiyo meesha ugu haboon wadanka iyo dadkaba waa xildhibaanka marka waxaa muhiim ah inaan isweydiino xildhibaan noocee ah ayaa ku wanaagsan bal degaankaaga in uu matalo maxay tahay aqoonta looga baahan yahay maxay tahay fahanka looga baahan yahay in uu xildhibaanku u yeesho arrimaha siyaasadda in uu fahansan yahay waxaad ogtihiin hadda wadanka Soomaaliya waxa jira muran weyn oo u dhaxeeya xukuumadda federaalka ama dawladda dhexe ee villa Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada gaar ahaan qaar kamid ah xaqiiqdii doodaasi waxay ahayd inay dhex marto xubnaha xildhibaanada baarlamaanka wadanka Soomaaliya oo iyagu wax badan ay kaga doodaan baarlamaanka gudihiisa sida ay u dhici lahayd doorasho nadiif ah wadanka Soomaaliya laakiin nasiib daro halkii la rabay in ay xildhibaanadu ay doodaha noocan oo kale ay galaan waxay noqotay ama ay tahay hadda xukuumadihii iyo
gobolada xukuumadahoodii in ay madaxdii ugu sarreysay iyo madaxweynihii ugu sarreeyey ay ka hadlayaan oo uu kaba maqan yahay doorkii ay xildhibaanadu ay ku lahaayeen inay ka doodaan arrimaha doorashooyinka. haddaba waxaan rabaa barnaamijkan oo sidaan idiin sheegay tijaabo ah, waxaanan barnaamijyadeedii ay ka duwanaan doonaan hadda ka bacdi sidii hore, oo waxay soo geli doonaan xiliyo kala duwan oo aan badan. sababtoo taa waxaan rabnaa inaan ka hadalno arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo wadankan Mareykanka iyo dhammaan caalamka oo idil haddii lahayd. marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed intii hadda barnaamijkeegan ugu horeysa maanta nagala qayb qaadan karta inaadna soo wacdaan oo aad nagala qayb qaadataan muhiimiyadda ay leedahay xildhibaanada kugu matalaya baarlamaanka wadanka Soomaaliya heer federaal iyo aragtidaada doorashooyinka wadanka Soomaaliya. marka numberka waan waxaan idinku qoray shaashada, dhinaca WhatsApp-kana waad iga soo wici kartaan, sidaas oo kale dhinaca WhatsApp-ka ama telefonka qofka haysta isagana si toos iga soo wici doonaa haddii Ilaahay idmo. marka waxaan sugaaba waa codkiina iyo aragtidiina yaa ku habboon in uu matalo deegaanka adigu aad tusaale ahaan kasoo jeedid. ma jira xildhibaan gaar ah oo adigu aad go-aansatay oo aad ogtahay in uu u tartamayo deegaankaas oo aad leedahay xildhibaankaabaa ku habboon in uu matalo degaankaaga. waa maxay sababta aad leedahay xildhibaanka aad u dooranaysid? waxaa socda doodo kale oo ah ay hadda sida aad ka maqashaan baraha bulshada ama dadkaba xagee lagu soo dooranayaa xildhibaanada? ma waxaa lagu dooranayaa caasimadaha hadday yihiin kuwa goboleed iyo kuwa ta wadankaba, mise waxaa lagu dooranayaa degaan gaara? waxaan u malaynayaa doorashadan in la yidhi waa doorasho degaan, taasoo la doonayo maamulka gobolka iyo dowladda dhexeba inay iska kaashadaan si dadka degaankooda ay ugu codayn lahaayeen sida la sheegayo. haddii Ilaahay idmo marka qadka telefoonka waan idin fasaxayaa, dhinaca WhatsApp-kaba waxaanan idinku bishaaraynayaa insha Allah barnaamijyadii aan samayn jirnay in aanu soo celinay oo aanu toos haddii Ilaahay idmo marar badan ay barnaamijyadeeda uga soo geli doonaan dhinaca WhatsApp-ka, YouTube-ka. haddii Ilaahay idmo aakhirka bishan dhamaadkeedana telefishinka Darwish TV uu ka mid noqon doona sidaan idiin sheegay telefishinada laga daawado wadanka Soomaaliya. waxaadna ka daawan doontaan haddii Ilaahay idmo barnaamijyo aad u kala duwan oo aad markaad u riyaaqi doontaan. sidoo kale waxaan aad rabaa inaan ugu mahadceliyo dadka kala duwan xilka iyaga naftigooda iska saaray in ay barnaamijyo usoo diyaariyaan, ama hadday yihiin kuwa wariyaal iyo ama kuwa agaasimayaal qaybo gaara telefishinkan u noqon doona oo iyaga naftigooda xil gaara iska saaray. haddii Ilaahay idmo waxaan isku dayi doonaa maadaama aan hadda toos aan u bilaabay qaar ka mid ah inaan ku casuumo barnaamijyadan oyna nagala qayb qaataan haddii Ilaahay idmo idinka iyo madaxda markaasi stuudioyaasha kalena aan isku keen xiro. marka qofkii doonaya hadda barnaamijkan inuu igala qayb qaato maanta waa tijaabo, barnaamijkii ugu horreeyey. waxaan soo geli doonaa insha Allah laga bilaabo maanta berito wixii loo gaaraba barnaamijyadeedii. waxaadna ka daawan doontaan barta Facebooka haddii Ilaahay idmo inta aan bishan aakhirkeeda oo nooga dhamaanayaan samaynta stuudioyadeeda kale ama telefishinkan oo ka mid noqon doono telefishinada satellite-ka laga daawado Soomaaliya. marka hadda barnaamijkan daawanaysid nagala soo qayb qaado adigoo iga soo wacaya numberka aan shaashada idinku soo qoray haddii Ilaahay idmo si aad fikirkaaga aad uga dhiibatid haddii Ilaahay idmo. aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa. waxaan isku dayayaa bal qaar ka mid ah dadka raba barnaamijkan in nagala qayb qaataan in iyaga naftigooda aan kusoo dhaweeyo haddii Ilaahay idmo. barnaamijkan sidaan idiin sheegay waa barnaamij tijaabo ah oo aanu ku tijaabinayno haddii Ilaahay idmo aaladaha iyaga cusub iyo maanta qaabkan cusub oo u shaqayn doono TV-ga. qadka telefoonka waa idin fasaxan yahay. sidoo kale waxaan isku dayi doonaa numberka inaan idinku soo qoro xagga shaashada. qofkii raba fikirkiisa inuu ka dhiibto arrimaha doorashooyinka, arrimaha xildhibaanada, sidaad u aragtid bal siyaasadda Soomaaliya sida ay hadda u socoto, codkiina waa idin xor, waad isoo wici kartaan haddii Ilaahay idmo
sidaan idiin sheegayna waxaanu soo celinay barnaamijyadii aanu samayn jirnay aanu uga hadli jirnay arrimaha siyaasadda waddanka soomaaliya haddii la haydmo. marka kusoo dhawaada, qadka waa idiin furan yahay. maxay kula tahay arrimaha doorashooyinkan, xildhibaanada aragtidaada meelaha ay kula tahay in xildhibaanadaasi ay lagu soo doorto? waxay kula tahay in maamul goboleedyada caasimadahooda lagu soo doorto ama caasimadda waddanka soomaaliya, mise waxa ay kula tahay in lagu soo doorto deegaanada ama degmooyinka xildhibaanada? sidee kula tahay fikirkaaga doorashooyinkan iyo madaxdan isku haysata qaabka sidee kula muuqata adiga ka shaqsi ahaan? maxaa qaldan oo ka qaldan arrimaha soomaaliya? sida aad ogtihiinba waxa weeye doorashadu waa xalka siyaasadeed ee ummad iyo waddan. waxaanan aaminsanahay haddii soomaalidu loo ogolaan lahaa dadka shacabka ah in ay codeeyaan oo ay ku doortaan madaxweynaha ay iyagu doonayaan, oo markaa uu soo dhiso xukuumad ay iyagu markaa raalli ka yihiin, dhibaatadii faraha badnayd ee soomaaliya ka dhacday oo kale ma ay dhacdeen. laakiin marka dad yar ay go-aansadaan sida siyaasadda waddanka ay ku soconayso iyo cidda madaxda noqonaysa, ayaa dadku waxa weeye amni darro iyo burburkii soomaaliyaba uu ka dhashay. haddii jiri lahayd nidaam doorasho ah oo shacabka iyagu ay ku dooran lahaayeen madaxweynaha ay doortaan, ay u arkaan dantooda inuu hayo, soomaaliya waxaa la odhan karaa ama lagu doodi karaa inayan burburteen. laakiin waxaa keenay markuu qof ama dhowr qof ay go-aansadaan cidda xukunka qabanaysa. waxyaalaha aadka u la yaabka leh oo maanta bulshada soomaaliyeed macnihii ka dhex jira waxaa ka mid a in xildhibaanka degaanka adiga kugu matalaya in uu soo xusho ama uu keensado nin doonaya kursi madaxweyne in loo doorto, in uu isagu keensado xildhibaanka kugu matalaya degaanka, halkii bulshada degaanka degan iyagu ay keensan lahayd qofkii ku matali lahaa aqalka baarlamaanka. xaqiiqdii waxaa muhiim ah in mujtamaca soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay fahmaan in xildhibaanku uu yahay golaha ugu jira baarlamaanka, inuu yahay kii ka hadli lahaa arrimahooda la xiriira waxbarashada, kii ka hadli lahaa amniga degaankiisa uu ku matalo dowladda, kii ka hadli lahaa hadday ka jirto dhibaato waxbarasho xumo, kii dowladda usoo horseedi lahaa inay timaado degaankiisa, kii haddii abaaro ay dhulkaasi ka dhacaan la rabo inuu ugu horeeyo ama uu wax ka qabto. xaqiiqdii xildhibaanku waa isku xiraha xukuumadda iyo dowladda iyo shacabka. laakiin nasiib darra waxaa ah in qofka xildhibaanka adiga kuu ah ama degaankaaga kugu matalaya mararka qaarkeed inuusanba noqonba qof bulshadaasi ay ku qanacsan yihiin. dhibaatooyinka kaloo jira oo aan raba barnaamijkedeeda inaan uga hadlano waxa weeye dadka soomaalida ah ee matala iyagu naftigooda degaanka, hadduu qaab isin yahay, cuqaal hadduu yahay, ama hadduu odayaal yihiin, ama sida hadda lagu wado hadday 100 ama 300 kii la isku raaco oo matalaya bulshada in uu ka fekero mustaqbalka ummadda degaanka degan oo uusan ka fekerin qofkaasi jeebkiisa ama maxaa lagu siinaya. waxaa xoogaa nasiib darro ah in ay dad gaar ah oo loo magacaabay in ay go-aan ka gaaraan ama ay ciddii ay noqon lahayd xildhibaanka degaankooda inay ku qiimeeyaan qofku lacagta uu isagu haysto, ku qiimeeyaan oo ayan ku qiimeyn qof matali karaya degaanka ama wax u qaban karaya, laakiin ay ka fekeraan kaliya qofkani dhaqaalaha uu wato iyo dhaqaalaha uu siinayo. iyadoo marar badan ay dad badan ii sheegeen ama noo sheegaanba in qofka degaanka ka socda uu la gorgortamayo dadka u tartamaya xildhibaanada, isagoo weydiinaya xildhibaan walba waxa uu lacag u ogol yahay. waa nasiib darro. xaqiiqdii waxa wanaagsanaan lahayd dadka degaanka iyagu in ayba ku heshiiyaan in lacagaha laga qaado xildhibaanada, in xildhibaan walba lacag gaara laga qaado ee raba inuu ka qayb galo doorashada degaanka, lacagtaana loo isticmaalo in lagu bixiyo waxyaalaha bulshada
u dhexeeya sida arrimaha waxbarashada, arrimaha caafimaad hadday jiraan, arrimaha wadooyin. Tusaale ahaan haddii degaan gaara ay u tartamayaan 5 qof ama wax ka badan, haddii 5 qof uu bixiyo min 500 ama $1,000, waxaa laga yaabaa iskuul hoose dhexe oo magaalada ku yaalay inuu u anfaco inay lagu hagaajiyo. laakiin waa nasiib daro xubintii ka tirsanayd ee deegaanka matalaysay markii shaqsigii u tartamayay ay ka qaateen. waxaan aaminsanahay dowladda Soomaaliya ama hadday tahay mid dhexe ama mid goboleed, halka ay uga murmayaan waxyaalaha qaarkood inay ka murmaan sidii loo baalan lahaa musuqa ama musuqmaasuqa ka jira doorashooyinka Soomaaliya. waana dhibaatada ugu weyn oo hadda ka jirta Soomaaliya xagga doorashooyinka. waxaa ka jira musuqa ugu badan ayaa ka jira. marka insha Allah barnaamijkayga kulli waa bilow. maanta ayaan waxaan ku soo noqday insha Allah barnaamijyadii aanu qaban jirnay Darwish TV. sidaan idin sheegay Darwish TV insha Allah bishan dhamaadkeeda wuxuu ka mid noqon doonaa telefishinada laga daawado dhammaan wadanka Soomaaliya. waxaanu ka hadli doonaa siyaasadda, waxaan jiri doonaa barnaamijyo badan oo ay wariyaal kale ay daadahayn doonaan oo aan uga hadli doono arrimo kale. arrimaha doorashooyinka ayaanu ka hadlaynaa. nambarkayga shaashadu ku qoran yahay. haddii aad Soomaaliya iga soo wacaysa ama meel kale, waxaa ka soo hormarin kartaa number 1 ama number 2 wixii fikirkaaga ah. yaa matala yaa ku matali kara, waa maxay haddii aad sawiri lahayd xildhibaanka deegaankaaga kugu matalaya, sawirka aad ka bixin lahayd. haddii aad qaarkiina soo wici kartaan telefoonka shaashada ku qoran. waa barnaamijkani waa barnaamijkii ugu horreeyay oo tijaabo ah platformka cusub aan isticmaalayno. insha Allah codkiinu waa idin xor, waana idin furan yahay haddii ilaahay sidaan idin sheegayna. waa sida aan u bilownay haddii ilaahay idmaha barnaamijyada. marka idinku baan idin sugaynaa iyo wicitaankeena insha Allah biidmillahi kariim. barnaamijkan sameyn jiray hore wuxuu ahaa sooyaalka SSC, laakiin hadda waxaan ugu magac darnay sooyaalka Darwish TV. waxaan uga hadli doonaa dhammaan siyaasadda wadanka Soomaaliya oo idil. waxaan sugnaba waa wicitaankeena haddii ilaahay idmo. qadarka bacdi baan ku soo noqon doonaa. waayahay qadku waa idin furan yahay. qofkii raba inuu soo waco oo nagala qayb qaato arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaanu ka hadlaynaa. waa barnaamijkii ugu horreeyay oo intaan hadda dib u bilownay aanu maanta aanu tijaabinayno Darwish TV oo ka mid noqon doona telefishinada haddii ilaahay idmo laga daawado wadanka Soomaaliya idil, anagoo shaqada toos bilaabi doona insha Allah bishan dhamaadkeeda. waxaanu ka hadlaynaa arrimaha doorashooyinka wadanka Soomaaliya. qofkii ugu horreeyay baan u malaynayaa inuu soo wacay. assalaamu calaykum. alxamdulilah aad baan kuugu fiicnahay. waxaan u malaynayaa waxaa soo wacday barnaamijkaad rabtaa inaad nagala qayb qaadatid. waayahay wax yar sug walaal, systemkan kugu xiraynaa si ay dadku si fiican kuu maqlaan. ku soco. waayahay adigu waxaad leedahay kow qofku waa inuusan noqon qof dibadda ka yimid. waayahay maxaa kalifay inay lacag noqoto adiga aragtidaada? doorashadu adiga xamar jooga hadda. waayahay aragtidaada sidee u aragtaa marka in codka xildhibaanka inuu iibsado? waayahay waxaa tiri dad baa inta lacag loo qeybiyey
doorashadii baydhabo miyaa tiri waa gartay adigu aragtidaada siday kula muuqataa codku wuxuu ahaa waxay ahayd codka sidiisaba inay lahaadaan bulshada rayidka hadda waddankan aan joogo maraykanka qof walba oo qaangaara da-dooda iyagu 18 jirka qof ku qaangaara sharci ahaan waxaa la yidhaahdaa waa in uu codka codkiisa uu siiyaa madaxweynaha ama xildhibaanka ama city councilka uu rabo uu arko inuu deegaankiisa matalayo lacagna ma weydiiyaan maxaa marka kalifay see u aragtaa adiga in qofka lacag la weydiiyo lacag laga qaato waa gartay waa gartay maxaa tiri qof gaajaysan muxuu dooran karaaba haye waa gartay codkaaga xoogaa sibaad moodaa inuu aan hob inay dadku ay ku maqli karaan dhinaca whatsappka haddaad iga soo wici kartid inkastoo whatsappka hadda baad iga soo wacaysid okay walaal codkan wax yar hagaajinaynaa insha allah hadduu ilaahay idmo bal adigan dhinacaaga ka hagaaji insha allah okay okay insha allah hadduu ilaahay waaya walaal waay hello وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسو دو للبرنامج codkaaga si fiican baan u maqlaa I hope dadkan inayna maqli karaan dhinaca Facebook-na bal waa eegi doonaa waan ku salaamayaa gaar ahaan aad iyo aad baan ku salaamayaa waxaan idinku salaamayaa dhammaantiin beynta golaha ku jirta salaamullah walaal adigana waa ku salaamaynaa waxaan ka hadlaynaa arrimaha doorashada waddanka Soomaaliya haddaan si gaar aan kuula kaftamo waxaan u malaynayaa weliga doorasho oo cod aad bixisay hadda waan filayaa inaad North America iga soo wacaysay Soomaaliya ma ka dooratay ma malaynaya inaad xilli caynkaas aad gaartay ama aad aragtay say kuula muuqataa in ummadda Soomaaliyeed in ummadda Soomaaliyeed ay ilaa iyo hadda intaasoo sanayado dagaal ku jirtay oo aad ogtahay dhibaatooyinka wixii keenayba in aad ka mid timid dawladdii militariga ahayd in hadda mujtamacii Soomaaliyeed waliba reer koonfur iyo magaranaysa goboladan soke lala yahay nidaam qofka Soomaaliga oo codkiisa ku dhiiban karo si xor ah oo uu dooran karo xildhibaanka uu doono ama madaxweynaha uu doono see u aragtaa arrinta markood sidee u aragtaa baan ku yiri arrimaha doorashooyinka in qofka Soomaaliga ee Soomaaliya maanta jooga oo intaas ka soo wareegtay 30 sano dagaalaadkii kadib uusan wali awoodin inuu codeeyo uu doorto xildhibaanka uu doono ama madaxweynaha uu doono marka hore aad sheegay markiina baqta ala Muhammad wa ala ali Muhammad marka xigta walaal doorashooyinku anigu horta shaqsiin kama soo gelin Soomaaliya laakiin doorashadu waxay u baahan tahay marka hore in loo gobol xaadho dad bisil oo sharci yaqaanina ay u gobol xaadhaan waxay cadaysaa qofka bini'aadamka ah xaquuqda uu gaar u leeyahay waayahay walaalay wax yar iga raali noqo systemka hadda ku xiran ayaan ka furayaa waxaan ku xirayaa bal system kale aad baan u jecelahay bal inaan aad nala dhamaysatid marka wax yar ii kaadi haddii ilaahay idmo si uusan ay codkaaga ay si fiican ay ugu maqlaan it seems nidaamkan hadda igu xiran inuusan codka dadka si fiican u gaarsiinayn wax yar raali noqo hello hello ma maqlaysaa walaal okay waaye waxaan filayaa hadda codku waa ka wanaagsanaan doonaa waxaan ku xiray mid kale ku soco waxaad tiri anigu doorasho kama gelin Soomaaliya laakiin wadamadan baan ka galay marka waa maxay muhiimada qofka sideedaba doorashada uu u galo bal ku soco
waa sax qoyskaas aad bedel ku raadinayso qofkuna isbedelka meesha ay ka gasho ama mucaaraha ama muxaafid ha noqodee waa wax isaga u gaar ah waa sax marka laakiin xasee loo sameeyaa weeyaan maxaase loo maraa weeyaan procedure bay leedahay oo loo sameeyaa marka anigu haddii aan fikiro habka Soomaaliya dee Soomaaliya wadan u bisil oo hadda u bisil arrintaa ma aha laakiin wax walba mar baa lagu tallaabsadaa ama ha lagu khasaaro ama ha lagu faa'iideeyo waxaan oran lahaa dhacdo doorasho qof iyo codihii hana la sameeyo inagoo aynu ognahay musuqmaasuqu inagu badan yahay inagoo aynu ognahay under the table inuu inagu badan yahay laakiin waxaan raacin lahaa settlement waxa lacagta la yidhaahdo in la seejiyo la mamnuuco in la mamnuuco arrinta musuqmaasuqa waxaan la yidhaahdo lacag baa la isku soo doortaa xildhibaanada Soomaaliyeed aynu ku ognahay inay ku fadhiyaan hadda ama malyan dheer ahaw ama fiqiirka ugu hooseeya ahaw wax lacag la yidhaahdo inaan laba aqbali karin marka u horeysa waayahay qodobkaasi waa qodob muhiima sidee loo gaari karaa marka waxa weeye qaabkii dhaqanka ayaa musuqii ku jira qaabkii wuxuu ku jira siyaasiyiintii see loo joojin karaa marka musuqa in xildhibaanka aan la weydiin wax lacaga laakiin la weydiiyo aragtidiisa iyo wuxuu qabanayo waxaa loo joojin karaa doorashadu waa inay balaan leedahay balaanka ay leedahayna waa inuu noqdaa qodobka koobaad qodobka labaad qodobka saddexaad qodobka afraad waa inay noqotaa in la yidhaaho waxaan aan soo qornay highlightka oo doorashada wax laga gudbi karo ma aha xildhibaan lagu dooranayaana ma jirto hadday dhici jirtay ma dhacayso waa inay dawladdu keentaa ra'yi ay kaga gudbi karto dadkan iibsanaya dadkan waa la iibsanayaa kursigana waa la iibsanayaa dee kursi la iibsanaya caawo dhan haddaan foodo waa anoo foosto maran biyo ku shubaya waa sax waxa weeye haddaan dawladdu taa joojina dee shicibka inay jiraan waad foodaysaan ma aha ma ii shaqaynayso waa sax aniga for example SSC baan kasoo jeedaa xildhibaan aniga xamar ii fadhiya oo aniga ii hadla haddaan SSC yahay ma haysto waligayna ma samarin dee uma foodayo markaa nimaan anigu aan foosto maran dhaaminayo haddii madaxweynaha iyo dawladda Soomaaliyeed ay doorashadu runka tahay waxa weeye waa inay balaan noo samayso qof iyo codku inuu socon karo uuna qofka fiqiirka iyo qofka taajirkiiba meel ku wada foodi karaan waa sax marka waxaad leedahay ma kula tahay aragtidaada in lagu daro qodob heshiisyada hadda la sheegayo way ku heshiiyeen mararka qaarkood waxaad is leedahay wax la taaban karo oo arrinta musuqmaasuqa oo kala ka hadlaya kumaba jiraba ma kula tahay qodobo in lagu daro ay sida wada saxiixaan madaxda maamul goboleedyada iyo sidaasoo kale dawladda federaalkaba in la mamnuuco qaabkan laaluushka la qaadanayo qodob ahaan in loogu daro wada saxiixaan walaalo waan akhriyay qodobadaas ma ku jirto arrintaa iyo mid soo dhaweynaysa toona kuma jirto waa sax runtii marka waxay ila muuqatay arrintii hore oo shaati kale oo guduudan yara gashan ma garata wax macno ay Soomaaliya usoo kordhinaysana aniga runtii wax weyn abateed weyn ma siin marka ilaa arrintaa laga fadhiisto oo qodobo cusub la keeno arrintaa mamnuuci kara mooyaane sugtug meeshaada joog baynu ku jiraynaa waa sax dawladda Soomaaliyeed baan la hadlayaa baaqana halka uga dirayaa biidnillah inay gaadho dawladda Soomaaliyeed hadday rabto caqabadaha haysta Soomaaliya inay ka baxaan waa in shicibka loo ogolaadaa codkooda xorta ah waa inaan xildhibaan ama oday meel ku soo doortay oo anigu reer hebel leeyahay aanu soo dooran ama maxay ahayd intuu lacag soo urursado guryo iyo dad xaqnaa soo dhacay una nagu dulgaban ha noo ogolaadeen haddaanu nahay ummadda Soomaaliyeed inaanu codkayga xor dooran karno ninka aanu didi karnana aanu didno ninka aanu dooran karnana aanu doonano qofka bini'aadanka ah ee jago isu magacaabayana waa in lagu xisaabtamaa oo lagu doortaa waxa uu yahay maxaa taqaanaa adduunka maxaa taqaanaa baa samaysa maxaad bedeli kartaa baa shaqaysaa waa sax waayahay waa aad baad u mahadsantahay hal su-aal oo kale aan ku weydiin intaadan qadka ka bixin arrimaha xagga dhowaan doorashooyinkii ugu dambeeyay dhacay dad degaana laga soo xulay ayaa waxaa la keenay caasimadaha nasiib darro sida aan ugu maqaalada ah dadkii halkay oran lahaayeen dhammaan inta xildhibaanka doonaysa hana la hor keeno oo aan weydiino waxa uu qof walba rabo iyo waxa uu qabanayo iyo waxa uu yahay aqoontiisa waxay kala hadlayeen baa la yiri qof walba muxuu hayaa lacag iyo meeqaadna siinaysa waxa ugu maqaalo ah in dad badan oo markaas xildhibaanimo meesha u tagay in ay lahaayeen haddaadan intaana siinayn aan ognahay madaxda qaarkoodna qaabka inay ku yimaadeen maxay kula tahay marka dadka shacabka ah ee deegaanka inay fahmaan in nimankan ay dirayaan ee odayaasha ah inayan iyagu naftigooda nidaamkan musuqmaasuqa ayan qayb ka noqon
laba arrimood baan u kala saaraya arrin waxa weeye walaal shacabka marka loo soo diro niman iyagu isa soo doortay iyaga isa soo doortay ama lacagna iska soo saareen waxa weeye shacabku waa inuu og yahay awood wuxuu leeyahay inta codkiisa gacanta ugu jiro waa sax waxa weeye qofka uu dooranayo qofka shacabka Soomaaliya ee maqla qofka aad dooranaysaan maha qof la idin soo sameeyo idin waxaasan idinka raba ama waxaas inta hadaadan hayn ma dooran kartid waa inuu marka horeba balaan idin yahay okay hebel iyo hebel maxaan ku dooranayaa aniga I don't care qabiilkiisa aniga I don't care siduu ka soo jeedo waxa aan rabaa wax qabadka qofkan iyo aqoontiisa inta ay la tahay waa sax waxa weeye waa inuu qofka shicibka wax dooranayaa horta isagu balaan leeyahay uu garan karaa qofka wuxuu ku dooranayo waxa weeye taas dadkeena way ka maqan tahay sababtay uga maqan tahay waxay dawladdiiba upgrade ma sameyn barnaamijyo waa in la sameeyo dadka lagu baraarujiyo waaye loo sharaxad uu dooranaya waxa uu yahay dadku waa in skills loo waaye insha Allah Darwish TV wuxuu ka mid noqon doonaa haddii Ilaahay idmo bishan aakhirkeeda telefishinada laga daawado waddanka Soomaaliya waana jeclahay inaad nagala qayb qaadatid arrimahan waxaan rabnaa inaanu wacyigelin badan ka sameeyno oo bulshada ku dhaqan waddankii aad baad u mahadsantahay wax yar walaal ii ogolo waxaan aad iyo aad idinku boorinayaa telefishinkan aad furteen ilaahayna waxaan uga rajaynayaa kii ku shaqeeya daacadnimo iyo hufnaan iyo Soomaalinimo inuu noqdo idinkana waxaan idin leeyahay guul baa gaadheena ku talaabsada aad baad u mahadsantahay walaal aad iyo aad salaam calaykum waaye وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسر دو مركلة وكاغو أيضا نمالينيا وان بدل النظام كورو كحرة هذا خفت ريال هذا وايه كسر ولا دب وقصة النقو وحتى هذا يسي رمها دور شوينك بس هذا خد الشد بقالة ثالثة سوى ناكسن مشكلة التايبر هاي وضد عن ايدي كار لهين مواعيد ايدي كار على لهين الصوق ولا يا waa sax waayahay su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo anigu naftigayga xaqiiqdii waxaan aaminsanahay madaxdii hadda soo martay waddanka oo dhan ama kuwa hadda jooga dadaal badan inayn u samayn mujtamaca Soomaaliyeed sidii ay xilli doorasho u geeli lahaayeen arrintan ID-gana waa doodaha ugu horeeya anigu Mareykanka jooga waxa ugu horeeyo la weydiiyo waa ID-gayga si aan u codeeyo sidee marka lagu gaari karaa balaalista xataa 4 sano oo soo socota kadib in qof walba oo muwaadin oo Soomaaliya uu helo ID uu ku codeyn karo xilliga doorashooyinka ama aqoonsi u ah oo lagu yaqaan حتى خط الصور هذا صوت ولا بهلي كرو يا أروي كده كل شيء خط الصور هذا صوت بهلي كرو why not maxaa dhacay konton sano sidaan lagu heli karin hadda aqeedood oo sayra waxa baan heli karaa oo baaraya waxa baan تصل شيء هذه ما لما صرنا maxaa sababay adigu hadda Muqdisho aad joogtaa Muqdisho aad ku dhalatay wax ku baratay ID kama heli kartid miya gobolka Banaadir ما بيال ما ولا حسن الشيخ ولا شيخ شريف ولا فرماجو دول مقدشة ما بحس أي كار ما بحسه خط كويدي واي كسور جلسة مركا واي كسور جلسة خط كيل الديوان جليو سو أي كار لين الديوان جليو أو فوق الجرا waayahay maxaa marka hadda adigu sharci ku ah wadanka gudihiisa marka joogtid qofka wadanka gudihiisa markuu diyaarad raacayo maxaa sharci lahaan la weydiiyaa markaad xafiisyadan ka leedahay sharci maxaa ku ah passport miyaad isticmaalaysaa passportka dalbanaysa passportka waxaa soo idi kara waxaa socdo passportka la socdaa laakiin dhalasho ahaan inaad si Soomaali tahay cadeynayso Soomaali laga bixiyo waayahay arrintaas waxaan u maleynayaa gobolada qaarkood waa kaga duwan yihiin gobolada qaar baa waxay bixiyaan ID anigu la hadlayo dhowr jeer waxaan isoo siiyay xaashi ku hor saabiga istaan ina Soomaaliya laakiin ay kaarna cadeynayna Soomaaliya suurki ku dhigan yahay ma laha leeyahay waayahay arrintaasi waxaa tiri waa caqabada koobaad waxaan laakiin anigu aaminsanahay dhaqaalaha hadii loo helo qalab fiican oo la keeno in la sameyn karo ID dhaqaale ma loo weydin wadanka lama ogolo inuu hor u socdo waayahay waayo waxaa la ogaanayaa cadadka Soomaalida inta la egta tirada la ogaanayaa runtaa macnaha waa gartay si cadadka loo helin awood ayaa waxaa loo joojinayaa ID karaan la bixin marka hadda waa codanayaa waa fooda galayaa ID kar mayso shalay u duwan gelinaya okay arrintaasi waa caqabada koobaad oo jirta dad badan ay ka hadlaan maxaa kale oo aragtaa inay caqabad tahay caqabada labaad waxay tahay
aniga waxaa taagnaa doorashadii xamar ka dhacay tii ugu dambeysay ee xasan sheekh waxaan ku dhaaran karaa oo ilaahay iga sareeyaa rag gaar aqaano oo saaxiibo aan nahay family ay u dhalan inay $1,000 loo qeybiyey gaabal xamar laga saaray meedaba la geeyey u socday xildhibaan ayaa ku dhaaranaya kitaabka cabdisalaam maanta qiyaamaha soo istaajinaya waa gartay marka waddankan waa ninkii lacag haysto waaye yaa been lagu sheegin okay su-aal baan rabaa inaan ku weydiiyo xilliga doorashada madaxda ugu sarreysa naftigooda qayb bay ka qaadataa arrinta musuqa ah oo waxay bixiyaan lacago madaxweynayaasha gobollada waad ogtahay iyo kuwa federaalkaba sida aanu ognahay lacagaha qaarkoodna waxay ka timaadaa wadamo gaar ah oo markaasi siyaasadda hadhowta ay u xagliyaan see u aragtaa in madaxweyne uu ku galo election waad ogtahay waddankan maraykanka doodii socotay maxkamadihii socday ee ahaa in ruushka uu saameyn faragelin ku sameeyey doorashadii maraykanka wixii dacwada ahaa oo ka furmay say kula tahay in soomaaliya lacaga laga soo qaato wadamo shisheeye ah cidduu doonaba ha noqdo waddankay doonaa noqoto oo ku galo doorasho siyaasad soomaaliya anaa maanta ka shifay soomaaliya dhibaata haysta kuu sheegaya haye xaqiiqada soomaaliya haysato ay ka hayaag leedahay anaa hadda kuu sheegayo xildhibaanada wasiirada madaxweyneyaasha hore hantidooda dhanna waxay taalaa nairobi waa gartay hoteelada waaweyn moolka isliiyo waxaa wax furan suuqa isliidahay xildhibaan wasiir agaasime ayaa iska dhig waa gartay waxayna dowladda kenya raalli ka hayno ma samayn karaan waa gartay mushkiladaaso nin waddanka dhaqaalihii waddankii uu ku abuuri waddankiisi dhaqaalihii ka qaaday kenya wuxuu ka gatay hadda axmedoobe wuxuu gatay guri uu lahaa barad cali asaga uu lahaa $60 milyan ka bixiyey hadduu dhaho maanta dowladda soomaaliya aan raacsanaya waa dhacaya sitaa oo dhicin dadka soomaaliya waxaa kala qaybo badan ama kala qadiid soomaaliya kala weyn waxaa kala weyn hantidaa yar uu ilaashanayo ko maxaa ku saaray doorashada 300 qofood iyo codka leeyahay oo waxa dhici karin sabab waxay ku dhici kara ku sheegayaa 300 oo qofood qofka uu keenayo wuxuu raadinaa 300 qofood oo reerkiisa maya 300 adigu deegaanka aad gaar ahaan aad ka timid ayaa ama beesha ayaa xulaysa ma xulayo xildhibaanka ama xukuumadda sidaas sax ma intee beel soo xulayso ama todoba soo xulaayo ama soo xulaayo Soomaaliya wax natiijo ka suuyin ama dimuqraadiyad caalamka jirta Soomaaliya sidoo kale dhigo qofka uu dooran karaa wasaasha oo may marka ka dhacaysa doonto waaye xamaraad joogtaa dabcan waxaa laga yaabaa waxyaalo badan oo qariban inaad dabcan waa halkii saldhigga u ahay dowladda inaad aragtid adigu see xal u aragtaa marka haddaad tiri meeshan wax walba waa qariban yihiin waxba kama hagaagayaan Soomaaliya Soomaaliya بالصماص وحوا عالم كي أكبر بالصماص في العالم كي وح ما يكجركوا واقرد وحنا حد الصومالي هل ملك هيك واحد إيسا صومالي وحكي بقى بعصتها عدالة وسارد عدالة محكمة أي كهيك هذا وايه كو دورشنا ما تلقى أنا واجعلها إنه خارج على أوفو إنه أم خف خير لو محنو قبنايو أم خف وضق وحو قبنايو واحترايو هذا لكن محمد جيران هداك هذه وحاو بهانا ما ويلي كان قبنايو تليزا وبهانا ولو كيرا يا حمد سبحان الله واقرتي وكان نقدر نوع عام هذا كل نوع ما وحكى سوي سائل يقعد يعني هبل ما واحد يكرد واقرتي كذا مشكلة صوماليا سويتها هي سو شقتي عكس سو شقتين قربها نيكل يروح سو وريري أما مريكا سو وريري أما عرب سو وريري وحوق سو جو حمر كل حلبانه من أباصور تبدأ عليه مجرو حصل الشيخ عيال كيس الحدقين تركيا شيخ شريف كل نصول مع الصومالي اللي مثل دقيقة مجرو وايه ما قلتها مركا شرعي اللي قصوا صاروا قفكا حقوق تلقى إيه العكس المهيان وقت وقت على رفيقتيان حدثنا الصومالي إن نروح على يقبطه أبو صومالي وحنا نغطه تذكر وضك الجو على كبحن وحبطي خلاص ودرته
laakiin dee xasan sheekh waa wuxuu yidhi dadka waddanka joogay baan ahay ka shaqeeyey wax ku bartay musuq maasuqana qayb buu ka yahay adigu naftiga hadda waxaa tiri carruurtiisa dibadda u dejiyey حسن شيخ اكبر مصيبات في العالم وسريه واولي واي maxaa saa ku tiri كل شيء ايربوركا waxaa jira bas dadka qaado $6 lagu qaado waa kilometer badan adiga 40 mitir kale waa tanasa $6 ku raacaysaa $6 soo noqon $2 waa qafki go and back xasas qolaagsaas kale yaa siiyey contractiga ama heshiiskaas asaas kale waa gartay maxaa ku saaray kaalmaha shiraalka wixii jardiinooyin ah Soomaaliya ku yahay Google hadda maqashid magaca Google la yiraahdo Google kaalmaha shiraalka shaqaas kale waa gartay maxaa ku saaray sharaam kutoor hadda maqashay abaad qaanay kutoor asaas kale maxaa laga dhis wili waa bahay ku dhawtaa waaya jardiinooyinkii hantida dawladdu waxyaalaha ay lahayd maxaa ka nool maxaase la iibsaday loo dilay soo saafeeyo yaa la dilay sababta loo dilay waxay jardiinooyinka la dumiya lagu soo celiyay sida ahaan jireen waaya adoo raalli ah jardiinooyinku dabcan waa meelaha dadku ay ku nastaan shacabkaana iska leh magaalado dhan haddii la dhisto dabcan shacabkii ma helayo meel uu ku nasto ama meel uu yani hawo fiican uu ku qaato xamarna waxyaalaha ay uga fiican tahay magaalooyinka waddankao dhan waa xagga hawada jardiinooyinkii xamar ee qurxaha badnaa maxaa ka nool maxaase la iibsaday oo ay leedahay siyaasiyiinta ka nool supermarketyo iyo kaalmo shidaal iyo moolo iyo waxa salaysa hal jardiin oo barnaamij xamar jiro waxaana bixiyay xasan sheekh marka yariso allah u naxariistee yariso allah u naxariistee wuxuu doonayay inuu soo celiyo wuxuu 6 bilood u qabtay 6 bilood gudahooda hawo baxada dad bixin waa la duminayay Soomaalida kama fahansano dhibaatadeeda leedahay aad baad u mahadsan waxaa kale ku sheegay xagga doorashada kaala hadlo haye doorashada lagu sheegayo masihada saa ku wadaan adduunyada weli kama dhicin gobortoore la baryaayo oo madaxweyne uu baryaayo adduunyada kama dhicin sax kartaa maxaa ka lifay adiga aragtidaada xildhibaanada ugu jira maamul goboleedadan hadda dawladda isku kacsan yihiin in arrimihii iyagu ay ka hadli lahaayeen ay keen dhacdo in xukuumaddii madaxdii ugu sarreysay xukuumaddu ay ka hadlaan doorkii xildhibaanka ayay ahayd baan filayaa doodahan inay ka qayb galaan xildhibaanada Soomaaliyeed oo dhan ee federaalka maxaa keenay inay xukuumadihii isku qabsadaan arrimaha doorashooyinka xildhibaan maqashid horta xaraami kowde afar kun oo doolar uu qaataa hotelku tigire waa laga bixiyaa asabta lacagta waa lagu waardiyo waa laga bixiyaa danaha wixii loo sheego akhristaa wixii dowladda madaxda loo sheegto akhristaa go-aan ma leh waxaa ku caddaynayso ra-iisul wasaare iyo maqan oo Soomaaliya ku maqan oo xamar aan imaanin asagoo min loo riday waxaa dhici kara mataa wala bilaadood ayagaana la rabay inay arrimaha aada uga doodaan ma inuu hor keeno baarlamaanka hor yimaado lasoo eedeeyo oo isdifaaco oo ka jawaabo xaq u lahaa laakiin mida lagu riday waa amar ka soo baxay madaxtooyada ka soo baxay waaye waa xaqiiqo waaye xildhibaanka marka waxaa ku shaqaysta xukuumadda waaya qodobka kale sidee u aragtaa dad badan ee u arkaan inay wax qaldan yihiin gaar ahaan xukuumaduhu ay iyadu dhibaatada qayb ka tahay oo ah xildhibaanku inuu haddana wasiir yahay ma kula tahay aragtidaada in haddii qofka uu wasiir noqdo uu u wareego dhinaca xukuumadda inuu ka baxo sharci dejinta baarlamaanka markaa qof kale lagu wareejiyo positionkiisa ama la kala saaro si loo kala saaro xukuumadda iyo barnaamijka khayra keensaday wuxuu u talagalay inuu doorasho ku soo baxo laakiin waa laga doontay khayre marka wuxuu rabay in la kala saaro wuxuu rabay khayre weli wasiirada 75 wasiir uu ku lahaa oo xildhibaane
doorashada uu qaban doono soo sharaxo si uu xildhibaanadiisa ugu codeeyaan waayo hadduu maanta xeerada wasiir hadda فرصار عارف اللي ممكن وزاري ودولة ولا دولة بتجتو واحد دولة جرى ماله هذا ما له مقعابة يا سيدي وعلى مقعابة يا وزير وعلى مقعابة يا أغير جوته ما حسش وحابة شرعية هذا هو دي وحيالك يا بيه انتك أنا هو دي ودولية محكمة برا وحكى هذا ودولية محكمة وحاليا بدلي تجمع وزير ولا يقع ولا يستلودي ولا يستلودي waaya laba qof oo walaalaha waxaan u malaynayaa meel waa ka wada shaqayn karaan aad baad u mahadsan tahay xogta badan aad nala wadaagtay waana ka hadli doonaa arrimahan doorashooyinka insha allah dad kalena waxaan rabaa inaan siiyo aragtidooda iyo fikirkooda farmaajada waa u diyaar wuxuu dooran lahaa idin kasta waa diyaarsaday wax walbo meeshaa ninkii lacag wato ninkaa waa soo shaqateeyeen soomaaliya waa usoo shaqateeyey waxaa kusoo duulay dad diyaas bare ah ee lacag ka sameeya usoo yimaadeen hal cunug oo xabar ka jooga nimadooda male ummaddaas masaakiin ديني وهمنا ملك أتصايا موتبتات تغرب سفعا labadii kun iyo lix iyo tobankii baan xamar mar soo bishii waxaa laga qaadaa bishii keliya waxaa laga qaadaa 3 milyan iyo bara laga qaadaa bisaas keliya hal laami xamar ka dhisada male ma ilaamiyada xoogaa waa isbedeleen turkiga iyo waxbaa dhaqaale iyo waxbaa la geliyay way dhaamaan sidii hore aan filayaa aad baad u mahadsantahay walaal magacaaga muxuu ahaa magaca muxyidiin muxyidiin aad baad u mahadsan tahay Facebook friends baan nahay baan u malaynayaa waxaan ku sheegayaa doorasho Soomaaliya waxaan ku hadda ku dhahay xaqiiqi Soomaaliya doorasho kama dhacayso wada tagaysaa aynu daa ka dhaco ama in dood kale xisbada mucaaradka dood ku dhaco dood kale saystaan waay ay ugu dhici weydo doorasho madaxweynahan aad baa loogu eedeynayaa in uu doonayo inuu doorashada dib u rido doorashada haddaan waddan ka dhicinna de waa ognahay Soomaaliya wixii dhibaatada u keeno badhan boo waxa weeye doorasho la'aanta siyaasaddu madaxweynuhu xukunka uu ka dhacaya baarlamaan goor u dhacaya baarlamaan laba bilood waartay waa gartay marka maxaa dhici kara haddii aad tiri xukuumaddii qayre waa xukuumad dhacday baarlamaankii laba bil baa ka dhiman marka maxuu samayn doonaa madaxweynahan waay uu u sugayaa intaas madaxweynaha qaladka uu sameeyay ugu hore waxay ahayd wasaaradda uriga maahayn waa sax waayo waxaa suuroobi lahayd doorashada ay sida tan noqoto in doorasho la qabto waa sax hadda waxaa lagu heshiin laayahay hadda idaacadda dhegeysanayay gobolka banaadir lagu heshiin laayahay maqaamkeeda lagu heshiin laayahay hadda lagu heshiin laayahay oo waxyaalaha laga doodayay ka mid ah ayaa ka mid ah doodaan waxaa ku dhamaanayso isbuuc farmaajada wuxuu ugu talagalay inuu waqtiga ku rido inuu wasaarada soo magacaabin intuu baarlamaan ka dhacayo hadduu baarlamaan ka dhaco dowladda male waayahay xukuumadna ma leh dawladna ma leh ha marka yaa been lagu sheegay shirka la qabanayo iyo dibaa loo dhigay iyo dibda baa loo dhigay iyo bisha wali toban baarlamaan ka dhaco xukuumadda dhacday farmaajo keliya baa waddanka xukumaya waa may waaya waa aad baad u mahadsantahay walaal thank you ujeedada waa taa keliya bas waaya aad baad u mahadsantahay haddii daacad ka tahay baarlamaanka weli waxaa ku shacabtay baarlamaanka inay keliya wax ku cadeynayso nin baarlamaanka ka hadlaaya ma dhahaya maaragtay weli maxaa ra-iisul wasaare loo soo magacaabi waayo weli maqashay waaya aad baad u mahadsan tahay saaxib maya su-aasha igi jawaab waa may ma arag waayo hadle waayo bil madaxweyne bil uu leeyahay bilshi wax ka bixu xaq uu leeyahay baarlamaanka ku dhaqo yiraahdo muddo hal igu daro waxbaa iga qaldan waxbaa saxaya halii kordhiyo muddada ma tegi ma dhihin nin xildhibaan ka hadlaya oo dhahaya madaxweynaha wasaarada soo magacaabi waaya ma jiro waa gadan yihiin farmaajo gadan yihiin iyo xisbiyadu gadan yihiin yaa been ugu sheegin waaya aad baad u mahadsan tahay xogtaa nala wadaagta waaya waayahay dadka Soomaaliyeed haddaan vote-ka la siin codkooda laakiin vote haddayan helin laakiin waxaan isku dayaynaa insha Allah bal dadka inaanu cod siino si uu qof walba aragtidiisa uu u madax bannaan yahay uu u dhiiban karo haddii Ilaahay idmo
mar labaad waxaan rabaa inaan dadkaan ku wargeliyo inaanu dib u bilownay barnaamijyadii dhinaca social media darwiish t v-na uu satellite ka geli doono insha allah bishan dabayaaqadeeda marka ay noo dhammaado isku dubaridista studioga ee gobolka Minnesota. Kusoo dhawow Maryan oo iga soo wacaysa Ingiriiska, bal marka ugu horeysa see u aragtaa horumarkan aan dhinaca darwiish t v ka sameeyno oo aad dadaal loo geliyay iyo dhaqaalaba in uu bishan aakhirkeeda oo ka mid noqon doono TV-yada Soomaaliya. Kusoo dhawow qadkaan kuu furo wax yar waa kuu furan qad. kusoo dhawow. haye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. horta marka ugu horeysa ilaahay baa mahad iskale, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. mar labaadkana ilaahay subxaanahu watacaala kugu guuleysiyey dadaalkaagii baa mahad iskale. meel qurux badan oo maasha allah maasha allah maasha allah lagu faani karo wey bay noqotay. maasha allah ilaahay isaga qaadir raxmaanahe kii dadka anfaca ilaaha ka yeelo. marka qofka loo duceynayo ilmaha loo duceynayo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfaca. laakiin yani ilaahay waxaan ka baryaynaa kanaalkii dadku wax ka bartaan oo kusoo hirtaan oo ku farxaan ilaahay ka dhigo insha allah bismillaahi kariim. aad iyo aad baan kugu hambalyeynaya, aad iyo aad waxa weeyaan braar baan kugu nahay insha allah bismillaahi kariim. maasha allah maasha allah maasha allah tabaarakallah. waayo aad baad u mahadsan tahay ducadaada ilaahay ha noo aqbalo insha allah. juhd badan iyo dhaqaale badanna waa la geliyay kulley TV-ga insha allah. waxaan rajaynayaa inuu ka mid noqdo TV-yada Soomaaliyeed. waayahay kusoo dhawow arrimahaanu ka hadlayno waa doorashooyinka. dhibaatooyin fara badan baa ka jira laakiin aan ku horumarno tan xildhibaanada sida ay u muuqato ma jiri doonaan malaynaya cod ummadda Soomaaliyeed waa loo diidan yahay. qof walba oo qaangaara inuu weli codeeyo waxaa u badan doontaa in uu xildhibaanadu ay madaxweynaha u codeeyaan, xildhibaanaduna ay dadka deegaanaadka soo doortaan. dabcan Soomaaliya hadda meelo badan ayaa waxaa ka jira Soomaaliya oo dhan baa marka waxaa ka jira dhibaato dadka xildhibaanada qaabka ay ku yimaadaan xildhibaanada. maxay adigu kula tahay aragtidaada qaabka ama see loo keeni karaa xildhibaano matala mujtamaca ay markaa degaankooda ka socdaan? horta waxaan u arkaa yacnaha xildhibaanada sidee xildhibaano ina mathali kara haddii loo fiirsado. de waxa lagu keeni kari lahaa haddii one man one vote ay jiri karto oo dadku intay soo sharaxaan dadku qofka ugu yacnaha tacliinta badan ugu iimaansan ugu ilaahay ugu dhow xaalaanta iska ilaalinaya in inta la qaado la doorto oo qofku de amaanada ilaalinaya in la doorto bay noqon lahayd. laakiin taqdiim ma saan u maleynaya sababta xayaan ma aha Soomaaliya wadan xor ah ma aha. يعني intaynu arkayno waxa adduunyada yani ka hooseeyaba ka badan oo dadka ku loolamaya wadamada ku loolamaya inaga yacnaha aynan Soomaaliya aynan ka dhaqaaqi karayn. nimanka kan yacnaha bas siyaasiyiinta Soomaaliyana anigu waxaan aaminsanahay inaan meel laga soo riixaynin ma jiro. marka qof la soo riixayo oo isagiiba lacag la siinayo la leeyahay saas samee de wax wanaag soo wadaaba iska yar. nin walibana reerkiisa iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa kaliya uu ka fikraya wadan qof ka fikraya ma jiro. xildhibaanada tanna marka yacnaha lacagtooda lagu soo ay ku soo baxaan adeeg fiir qofka hadduu intuu qaado isagu lacagtiisa bixiyo oo yacnaha lacag amba qabiilka ka bixiyo amba isagu jeebkiisa ka bixiyo oo lacagtiisa ku soo baxo beritoole wuxuu ku oranayaa maanadii soo dooratay ilaa ana isu soo doortay lacagtaydii baan meesha ku imiyo iyo xeeladaydii xoogaygan ku imi. marka wax yacnaha mas-uuliyad ah amba wanaag ah oo u hayo dadka ma jirto. haddeen markaad u fiirsatid gobolada tan SSC dadka yacna intaasoo sano masalayay xamar ku masalayay maxay u qabteen? awal waxay u qabteen ma jirto. bay sababtay nin walba amba qabiilkiisa amba naftiisa isaga jeebkiisa lacagta kala baxay. nin uu arka inay dad uu ka maqan yahay amba dad uu mas'uul ka yahayna ma jiro. nin waliba ana waxa weeyaan wuxuu ka fikirayaa waxaaskiisa iyo caruurtiisa iyo naftiisa. marka anigu uma arko in wax khayraad
shaqadii kasoo socdaan ilaah baanu leenahay laakiin uma arko misna waxaan rabay inaan ku weydiiyo dhibaatada walba oo qofka ku dhacda waxbaa laga bartaa adigu hadda degaan waxaa laga yaabaa hoose inaad kasoo jeedid maxay kula tahay in waxaa wanaagsan bulshada laga wacyigeliyo gaar ahaan dadka haddii lagu heshiiyo 100 waxaan maqlay iyo 300 baa la isku haystaa qolada maamul goboleedyadu waxay leeyihiin dadka xildhibaanka xulay ha noqdaan 100 dawladuna waxay leedahay qoladan federaalkuna ha noqdaan 300 qof waa ka fiicnaan lahayd in laga badiyaba si ay laaluush loo gaarsiin kareen laakiin Soomaalidu jeer 100 shilin u siiyaan xataa wuxuun bay bixinayaan see loo ummadda deegaankaas 300 ama 100 ay matalayaan looga dhaadhicin karaa inay doortaan bal qofka xildhibaanka inuu soo hor istaago bulshada oo u sheego wuxuu u taagan yahay wuxuu qabanayo si ay codkooda si kalsooni loo siiyo laguna dhaariyo odayaashaas dhowrka boqola in ayaan wax laaluusha ayaan ku doorsan danta shacabka deegaanka يعني horta dadka waxa dhibaatada jirta waxa weeye dadkii baahida haysta yani dadkii qaar baa waxa weeye meel xun ka raadinaya yani da u fiirsato Soomaaliya dhibaatada haysta waxa weeyaan waa corruption kaas ambalaalushka la siinayo weeyaan marka nin walba wuxuu rabaa sidoo soo baxo inuu laalush bixiyo laakiin hadii dadka inta la qaado la wacyigeliyo dadkii inta la qaado wax loo sheego hadayna xamaasad qabiil qaadinin oo yani sababtay inaga waxa dhibaatooyinka laba daraayna si haysta waxa weeyaan ma aha kaliya goboladaas laakiin waa Soomaaliya oo dhan waa xamaasada qabiilka yani qabiilka qof walba inuu qabiilkiisa u xusliyo oo yiraahdo inagii maxaa kursigeeni baa qof kale ku fariistay yani u xusliyo hadayna jiri lahayn dhibaatadaas labada dhibaato hadayna jiri lahayn dadku yani waa la soo kaban lahaa laakiin labada dhibaato bayna la haray marka sidee Soomaaliya labada dhibaato looga saari kara waa qabyaalada iyo laaluush anigu uma malaynayo hadeerta kulliba sanadaha kan soo socda inay taasi ka baxayso laakiin hadii inta la qaado dadka la wacyigeliyo oo waliba culimadu xagga diinta ay dadka u sharaxdo in waxa kan xaraan yihiin xita xoolaha kan la bixinayo xaraan yihiin waxa laga yaabaa dad badan inay inta qaadaan kuwan toobaan oo yiraahdaan war bal akhridiin xoolaha fiiriseen laakiin waxaan aaminsanahay xita culimada islaamka yani Soomaalidu inay yani sheekh waa gooni u hadli karaa laakiin hadii inta la qaado culimada intay soo fadhiisato iyagoo koox ah amba group ah ay intay qaadaan ay fadwo soo saaraan oo dadka ay xagga diinta ka maraan waxa laga yaabaa xoogaa inay dadku qaarkood ay xoogaa sariigtaan qaar baa kala jeclaanba oo aan shaqadood baan ahayn laakiin qaar inay sariigtaan baa laga yaabaa anigu waxaan aaminsanahay hadii la badin lahaayo 300 iyo 50 iyo meelahaas laga dhigi lahaa 400 waa yaraan lahaa nin intuu qaado lacag inta la qaybin kara laakiin de waxa uu leeyahay oo tiradaba u dhimayaanba waxay leeyihiin lacagaad waxaad qaybin kartaan oo waxaad wax bixin kartaan ha noqoto tiradu mo waa sax dabcan de qofka xildhibaanka waa qofka la rabay inuu deegaankaas iyo dawladda isku xiriiriyo uguna dacwoodo ama u doodo bulshadaas ama uga warbixiyaba dawladda waxyaalaha deegaankiisa ka jira oo dhan waana aragtay hadda Soomaalida dhibaatada ka jira dhamaan waxa jirta xildhibaano fara badan oo aan markay xildhibaanka noqdeen ugu dambeysay deegaankii gaarka ahaa ee laga soo doortay waana nasiib darro xaqiiqdi adigu laakiin fikirkaaga arintaas waxaan isku dayi doonaa bal culimada naftigooda inkastoo qaarkood siyaasadaba ka baxeen oo ka gaabsadaan markii ururadii islaamka qaarkood ay hawluhu ayagana ka burbureen laakiin waxaad u aragtaa in culimada naftigeeda ay kala hadlaan dadka Soomaaliyeed in la joojiyo laaluushka la bixiyo iyo la qaato xiliyooyinka doorashooyinka hadii yahay heer xildhibaan iyo heer madaxweyneba anigu taasana waxaan u arkaa maaragtay akfir hadii hal qof hadlo yani waxa weeyaan wax yani inkasta oo dadku ay isgaargaarsiin karaan laakiin dad badan lama gaari karo laakiin hadii culimada Soomaaliyeed ay wada yaqaan oo dhan intay meel soo wada fadhiistaan iyagu
iyagaaba kala qaybsan baa lagu leeyahay oo gurubyo kala ah ilaah ba iga yaqaana laakiin haddii intay qaadaan ay soo fadhiistaan oo fadwo soo saaraan oo yidhaahdaan isaasa diinta islaamku ka qabta sababtay waa la ogyahay qof walba waa ogyahay islaami inuu laaluushku xaaraan yahay ka qaataa oo xaaraan yahay ka bixinaya xaaraan tahay marka waxa weeyaan hadday intay qaadaan infisaaska saaraan oo yidhaahdaan war waxa kan aynu samaynana waa xaaraan yacnaa waxaana hala joojiyo waxaan u arkaa dad badan oo yacnaa yacnaa ku waantoobi lahaa inay jiraan oo soo lahaa war waxa kana qaadanaysa amba waxa kana samaynaysa waa xaaraan arrimaha kale inay rol ciyaari karaan waa sax waa isku dayeynaa bal barnaamijyada qaarka inaan culimo aan ku casuuno si ay arrimaha uga hadlaan xaqiiqdii shaki kuma jiro in uu yahay sharci darro iyo xagga sharciga xaaraanna uu ku yahay islaamka nasiib darro waxaan arkayay maalin dhaweyd madaxweyneyaal hadlayaan oo leh waxaan ku qaadanay lacagta signing agreement oo leeyahay heshiisaan saxiixay ayaa intaasoo milyan ku qaatay marka musuq maasuqa heer xukuumad iyo dowlad goboleedyo iyo xildhibaanba waa ku jira arrinta kale waxaad moodaa u baahan tahay mujtamaca inay si fiican u fahmaan tusaale ahaan in adad waa ogtahay deegaanaad fara badan kaa kasoo jeeda ama gobolada qaarkood in waxbarashadoodii cid ka hadlaysa aysan jirin nabadgelyadoodii sida ciidan booliisay ku hadlayaan laga hadlin ciidan maxaabiista ama asluub cid ka hadlaysaan arkin caafimaadkooda cid ka hadlaysa qofkii ka hadli lahaa marka xildhibaanku xildhibaankiina lacag waa lagsiistay ma kula tahay marka mujtamaca in loo sheego horumarkoodii inay iibsanayaan marka uu shaksi oo lacag ka qaadanayo madaxweyne aanan u qabanayn degaankiisii wax iyo ama xildhibaan aanan matalayn degaanka in markay lacag ka qaadanayaan mujtamaca in sidaa ay u fahmaan waxaan u arkaa maaragta dadkii waxaa ka maqan maaragtay wacyigelintaas aada iyo aad bay uga maqan tahay dadkeenu waa dad yacnaha qutlyoonkoodii la dagaalamaya hala dagaalamee yacnaha waxa weeye shakhsiyadii soomaaliga oo berigii hore sariigan jirtay maaragtay hadeertata waxaad u malaysaa dhibaatooyinka dhacay daraaddeed inuu shakhsiyadii baaba'day waxyaalo badan oo laga sariigan jiray oo ah hadday tahay barya hadday tahay laaluush qaadato hadday waxyaalahaas hadday tahay oo yacni qofka shakhsiyadiisa wax u dhimaya waxaad u malaysaa hadeertaa tan inayna dhibaynin qofka waana dhibaatooyinka dad badan haysta marka waxa weeye haddii intaa la qaado laga wacyigeliyo awareness raising tiro badan loo sameeyo dadkii intaa la qaado loo sheego la yidhaahdo hadeer waxaan soo xasuustay gabay maxay ahayd odaygii tiriyey wuxuu ahaa aadan carab waxaa la yidhi aadan carab baa waxaa la yidhi berigii hore hadeerta waxaa la yidhi waxaa jiri jiray dibitaatiyaal baa la oran jiray waa sa hadeer datan kuwa kan m p yadatan la dooranayo kale markaas waxaa nin buu ugu shubay markaasu wuxuu gabaygii waxaa ku jira hadeer gabayga ma raba inaan soo wada tiriye wuxuu yidhi bal muxuu micnoo tira ministerkan doorta marka hadeer taata buu kusoo gooyey moogta marka yani noloshiisii oo dhan buu intuu qaaday wuxuu sameeyey dadkaasi dad caqli badan bay ahaayeen aad iyo aad u caqli badan dadkii hore yacnaa waxa weeyaan intuu soo tiriyey wuxuu yidhi bal yani waxba iskama kay bedeline bal muxuu micnoo tira ministerkan doorta marka hadeer taatan dadkii yacnaha qofkii aan mas-uuliyadiisa kasoo bixinin waa in intaa la qaado cambaign lagu qaadaa oo la yidhaahdaa maxaa yacnaha mar dambe siduna isu soo sharaxin waayahay uuna dadka u khiyaamaynin maogta waayahay hoos aan soo dhadhacno hal su-aal baan ku weydiinayaa ee waa ku fasaxaya insha allah barnaamijka mar dhow waxaan rabaa inaan gebagabeeyo uusan aada u dheeraan xildhibaanada laga soo doorto gobolada sool sanaagi cayn waad og tahay goboladaasi waxaa ka jirta dhibaatooyin aada u waaweyn baa ka jira oo aada u badan arrimo nabadgelyaa ka jirta horumar la-aan baa ka jirta qaaradda soomaaliya marka maamulada loo kala cabirayo iyadoo waxaa lagu qoraa disputed sidaasoy tahay waxaan hadda maqlaynaa doodaha ka taagan villa soomaaliya inay qeyb ka yihiin xildhibaanadaasi meesha ka imanayaan sidaan ugu maqaalo ah madaxweynaha puntland deni uu rabo in lagu doorto garowe iyaguna qaarkood madaxweynuhu leeyahay kuwa gado iyo waxaan maqlaya goboladaasba waxyaalaha hadal ka taagan adiga fikirkaaga maxay kula tahay dadkaasi degaankaasi iyo kuwa hadda xildhibaanada hadda jooga ama qaabka doorashadooda u dhacayso siday kula tahay horta anigu waxaan aaminsanahay kuwa hadeer masalay oo dhan inaan lasoo dooranin sababta alaale meelay ku hadal hayaan dad iyo waxay dad u qabteen iyo waxay meelay yacnaha
xitaa kaga hadlayaan xitaa marka la doodayo nin iyo meesha kasoo jeeda doodaya amba miyaad aragteen anigu kale ma arkin marka waxaan ka wadaa dadaan dee awalba maqano jooga ahaa de maanta waxay kusoo noqdaan baaba iska yar tan kale waxaan aaminsanahay anigu oo kulleyba aan yacnaha ku talin lahaa dadka meesha kasoo jeeda yacnaha maalin kasta intii qof kale u talin lahaa oo amba meel kasta kasoo jeedeen qof kale u talin lahaa qof kale oo labaad u talin lahaa yacnaha inay iyagu intay qaadaan ay yidhaahdaan war xaggaynu wax ku qabsanaa oo haddii dad caqli laha ay yihiin oo yacnaha mustaqbalkooda ka fekeraya mustaqbalkooda imaayaashooda ka fekeraya waxba yacnaha mustaqbalka dhulkooda ka fekeraya sabtaxiyaan haddeer saatan dagaalada socdaa ma aha dagaal caadiya waa dagaal dhulboob ah dhulkaa layska boobaya marka waxaan ka wadaa meesha waa in intaa la qaado la fekeraa la yidhaahdo warseynu dhulkeenina ku ceshanaa yacnaa dad ina masali karo oo yacnaha dadka kan xaqi ka maqnaa u keeni karana sidaynu u dooran karaa oo yacnaha ayna qabiilnimo iyo jifi hoose iyo qayb iyo xukun baynu ku jiraa qayb iyo xukun divide and rule baan ku jiraa marka yacnaa inaynu taas niraahno warsayn dadka caqliga leh intaa la qaado laysu keeno la yidhaahdo warsaynu taa uga baxna anigu kulleyba taasaan ku talin lahaa waaya aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maryan inaad soo wacdid aad baan ugu faraxsanahay fikirkaaga iyo inaad mar labaad aad mar kale nala wadaagtid insha allah hadduu ilaahay idmo barnaamijyadani dhinaca social media ayaanu ku bilaabaynaa kadibna darwish t v telefishinka ayay dadka daawan doonaan aad baad u mahadsan tahay maryan ما شاء الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مدن هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan isku dayayaa inta saacadda ka dhiman 10 daqiiqo in hal qof hadduu isoo ama laba qofba aan ka gaarsiiyo inaan idinkana fikirkiina aad dhiibataan haddii ilaahay idmo sidaan idin sheegay baa darwish t v insha allah bishan dhammaadkeeda wuxuu ka mid noqon doonaa telefishinada dhinaca satellite-ka aad ka daawan doontaan haddii ilaahay idmo wararka iyo barnaamijyada badankoodna waxay idinka iman doonaan studioga gobolka Minnesota, Nairobi iyo magaalada Muqdisho dhammaan wadanka oo dhan haddii ilaahay idmo waxa uga soo warrami doona wariyaal aad baa u mahadsantihiin dadka share gareeyay xaqiiqdii waana mid kamid ah qaabka aad ku taageeri doontaan ama ku taageeri kartid telefishinkan barnaamijyada aanu idin sameynayno inaad la wadaagtaan mujtamaca Soomaaliyeed iyo sida kale inaad idinku naftigiina ka qayb qaadataan barnaamijyada ka baxaya ama aad noo soo dirtaan waxyaalaha aad isleedeen markaasi way anfacayaan in dadka laga hadlo arinta xildhibaanada ka hadalkeeda waa sii wadi doonaa waxaan jeclaan lahaa dadka Soomaaliyeed inay fahmaan xildhibaanku waa xubinta ugu muhiimsan ee dawladda kuugu jirta haddii aad tahay qof shacab ah oo degaan walba aad ka degan tahay Soomaaliya waa qofka la rabo in uu ka hadlo haddii degaankaasi ay ka dhacdo abaar waa qofka la rabo waxbarashada degaankaaga inuu ka hadlo waa qofka la rabo warbixin inuu u gudbiyo dawladda federaalka degaanka waa qof dawladda ugu jira dabcan sidaas oo kale waxyaalaha qaranka uu u baahan yahay inuu ka qayb qaato sida gudiyada kala duwan ee baarlamaanadu ay leeyihiin haddii yihiin kuwa ciidamada iyo kuwa arrimaha wadanka gudihiisa iyo kuwa bulshadaba ah inay ka qayb qaataan waa qof muhiim u ah degaanka iyo dawladaba mar walbana waxa uu matalaa dabcan shacabka sababtaasna weeye sababta loo yiri golaha shacabka waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan mujtamaca Soomaaliyeed in ay iska ilaaliyaan qofka ku matalaya waa adiga oo imaamka masaajidka oo kale ku doortay musuqmaasuq ama qabyaalad ama qaab musuqmaasuq doorka qofka uu leeyahayna uu ka balaaran yahay dhaqaale yar mararka qaarkoodna xildhibaanada sababaha keena inay la doodi kari waayaan xukuumadda hadday tahay mid maamul goboleed iyo mid federaalba waxa weeye xildhibaanka oo isaguba noqday ninkaas nin lacag ka qaatay kadibna ay ku adkaatoba inuu ka hadlo wixii uu ku eedeyn lahaa xukuumadda marka la fiiriyo Soomaaliya hadda waxaad moodaa dadka Soomaaliyeed inay aad ugu kala duwan yihiin fahanka dawladnimada ah iyo in xildhibaanadu doorkooda ay gutaan mar walba ama xukuumaddu ha qaadato ama yeen qaadan laakiin codka xildhibaanka si aan cabsi lahayn baqdin lahayn ama geesinimo inuu ugu hadlo mujtamaca mar walbana ka hadlo waxyaalaha uu arko musuqmaasuqa ama xukuumadda
wixii ka qaldan sida laaligeed waa muhiim inay shacabka soomaaliyeed ay ka digtoonaadaan inay arrimahan oo kale tusaale ahaan ay ku doorsadaan dhaqaale iyagu jeebkooda ku dhacaya xaqiiqdiina inay xaaraan tahay waxaan u malaynayaa shaki kuma jiro sababtoo tahay ummad dhan oo degaankooda aad u tahay mas-uul ayaad gadatay codkooda aad gadatay aadan ku bedelan adeegii dowladnimo ay kuu qaban lahayd laakiin aad ku bedelatay siyaasiyiinta soomaaliya hadda waxay noqdeen qof u shaqeeya un iyagana company ama qolo kale insha allah barnaamijyadan waa kasii hadli doonaa haddii ilaahay idmo berito saacadda markay kowda ay ku aadan tahay xilliga minnesota ayaan dib ugu soo noqon doonaa haddii ilaahay idmo barnaamijyadii social mediaha ayaanu ku wadi doonaa dhinaca daruush t v inta uu telefishinku kasoo geli doono satellite-ka dhinaca soomaaliya oo aanu filayno dhowrkan maalmood ee ka dhiman september haddii ilaahayda aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa barnaamijkaygana hadda ka bacdi qeybta aniga aan soo dayn doono waxaa loogu magac daray sooyaalka darwiish t v oo noqon doona barnaamij sidan oo kale ay usoo wacaan mar walba dadka shacabka ah oo aanu ku wareysan doono sidaas oo kale dadka siyaasiyiinta ah haddaad adigu naftigaaga aad xildhibaan aad tahay ama haddaad doonaysid inaad xildhibaan u tartintid aad baan kugu soo dhaweynayaa barnaamijkan una diyaar garow su-aal walba oo si xora lagu weydiiyo iyo dadka oo iyaguna ku weydiiya waxaa tahay waxaa taqaanid iyo waxaad u qabanaysidba haddii ilaahay idmo aanan anigana naftigeena aan ka ilaalino barnaamijyadeeda musuqa ka jira dhinaca saxaafadda oo siyaasiga aanan lagu xujeynin inuu dhaqaale uu ku bedesho codka xaqiiqdiina la kala saaro waxa xayeysiinta ah iyo waxa warka ah marnaba war la wareysanaya siyaasi uusan ahaan wax lacag lagaga qaato laakiin hadduu qofku uu doonayo xil gaar ah in wax xayeysiina uu samaysto telefishinada maraykanka iyo kuwa adduunkaba laga sameeya laakiin ayan wanaagsanayn waana ogsoonahay dhinaca media naftigeeda musuqu waa ka jiraa haddii lahayd marka intaasaan ku gabagabeynayaa barnaamijkeyga maanta waa barnaamijkii ugu horreeyey qaabkan cusub ee darwiish media network waxa uu noqonayaa parenty company-ga haddii ilaahay idmo darwiish t v na magaca uu kusoo geli doono telefishinka insha allah september dhammaadkeeda haddii ilaahay idmo aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa inta aanu ku kulmi doono barnaamij ku xiga waa anigo axmed laari waxaan idin leeyahay sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu